السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي السود وهذا كسود وهذا هذا مجنال ما توحد دي شيء أبي نكعوين دوننا تيك توكا كهشان فلوريس فربضان تتفربنا إيك على سحرمان وياي أبكم وحويان مجال سيفوي واحد كو سيرشين كرين سان لنك هايو جوجلها سيفوي مركها واحد كل فنسان تلعب كستا والعلامة دعسان كاكو سارو كبعدنا واحد كلا دوران ساعة كومنتيني كوف اللوف يكو ساران يني فيديو اللوف كو ساران يني فلوريس كسيان يني شير كو دهان فيديو قد صورتو inta baadiga kala dooranaya laakiin meel kastoon calaamada casaanka ku saaro ayaad raaci doontaa horta TikTok saan wada ognahay run ahaantii qof kasta wuxuu xiisayaa inay dad fara badan kaga soo xidhmaan waana meel hadda aad loo jecel yahay inaad asxaab ku yeelato waana meel ay u fududeyso dhalinyaro fara badan inay caan noqdaan ama ay dad kaga soo xidhmaan marka adiguna kama liidan doontid dadkaas mana bari doontid maanta ka bacdi walaalayaal follow saara iyo love saara qof binaadmi adigoo kala ah bariin kumanaan baa jirta intaad rabto in ka badan gaadhay iyaguna maanay baryin marka baryada iska jooji ka bacdi hadii aanad muuqaal tayo la soo dhigayn halkan ka badso followers-kaaga ka bacdi markaad followers-kaaga badso 100 ama 10 markaad gaadho insha Allah bilow talent leedahayna talentigaaga leeymo hadii kaloodana lahayn ba talentina qof horta aan talent lahayn ma jiro balse waxaad jeceshahay hawnkeen dadkana aad ku madadaalin karto ama waxa istiraado wanaagsan yahay kaun samee waayahay walaalo marka waan ku tusay meel kasta calaamada casaanka ana waa ku saaray adigana isticmaali doona aniga run ahaantii ma jeclina video ka soo duubo oo qaabkaad sameynayso balse si ka fududina ku tuso waan haleeli karayaa walaalo midaas sameeyaa ku tusay waayahay ka talaabooyinkan kale si aad uga badiso 100,000 ama aad u gaadho 1 milyan aanay jeceliin Soomaaliya dadka wax soo gudbiyo dhanka ay TikTok inay 1 milyan iyo ka badan gaadhaan inkastoo in Soomaalidu soo fara badnayn horta run ahaantii Soomaalidu waa dad wanaagsan markaas waxay ku wanaagsan yihiin ay tahay dadkooda xun iyo kooda waalan iyo kooda xanuunsanaya iyo kooda fayow intaba way soo kiciyaan marka adigu samee muuqaalo soo gudbi dhanka ay TikTok muuqaalo tayo ku soo gudbi maalin kastana waxa soo dhigin ama 3 video ama 4 video soo dhigin balse hal video aad ka soo fiirsatay maskaxdaaduna aad uga soo fikirtay soo dhig kaasoo qarxi doona kaagana soo xirmi doona dad fara badan marka waad gaari doontaa 1 milyan iyo ka badan balse hadaad maalinkii 10 muuqaal ama 15 muuqaal soo dhigto kuwaas oo aad sina uga fikirin waa wallaahi waxba inaan ku kicino waa laga yaabaa inay kacaan waa laga yaabayo ilaahay waa kaadir marka walaalo halka ka badso run ahaantii waa meel wanaagsan aniga laftirkayga waan isticmaalay oo aad baan isticmaalay TikTok-ga hal muuqaal baan soo dhigay intaas oo qofna iskaga xidhan tahay halka muuqaalka bacdi wax kale ma soo gelin inkastoo followers-ka hoos u soo gasii noqdo oo dhanka ay TikTok-ga ciladu leeyahay TikTok-gu tahay dhammaan dadka oo dhan ay wada arkeen marka walaalo waxaan moodayaa runtii markii hore aabkan waxaan ay dirayaan inuu been yahay oo aan followers-kan saxayn inkastoo ilaa 50 qof iyo ilaa ka badan aan account-kooda gudaha u galay dadkaasna yihiin dad wax soo dhiga waxna soo geliya ilaa dad la aqoonsaday shirkadda aqoonsatay bay soo follow gareeyay calaamadiina u saaran tahay dadkaasna markaan fiiriyay ay 1 milyan ka badan ku xidhan yihiin marka walaal hadii xataa aad fahmi weyso ila soo wadaag oo xagaayo comment-iga igula soo wadaag si aan kaga soo duubo muuqaal wanaagsan adiguna aad uga maaranto walaalayaal loo fiisaara iyo walaalayaal follow siiya ogo walaalo waxaa jira maalmo ay update nimankan ku sameeyaan aabkan maalmahan oo dulqaado kagana meeraro inaad video xasaas soo dhigto halkaasna ay dadka iga soo xidhmaan insha Allah waad ka guuleysan doontaa TikTok dadka aad bariisana waad iska dhaafi doontaa inkastoo walaalada yihiin iyaga ku garan doona insha Allah inta wixii ka dambeeya inay kugu soo xidhmaan marka walaalo ku soo biir channel-kayga si aad uga hesho muuqaalo ku cajibiya ama waxyaabo fara badan adiga ku tara anigana waxba igama dhimayso inay dad fara badan igu soo biiraan sababtoo ah waxaan bay taraysaa marka walaalo aan isku xidhnaano si wanaagsan aan wada socono insha Allah xaqooda kaliya tana aan isugu nimaadno